waxaa isaguna halkaasi ka hadlay mudane faarax macallin oo ka mid ah siyaasiyiinta caanka ka ah geeska Afrika isagoo sheegay in labada shacab ee Soomaalida iyo Oromadu ay yihiin dad walaala oo soo maray duruufo adag isagoona xusay in fursadii aan soo marin Soomaalida 200 oo sano ama 2 qarni dhanka Oromadana aan soo marin 500 oo sano ama 5 qarni ay maanta haystaan isla mar ahaantaana looga baahan yahay in ay ku faraadaygaan fursadan Ilaahay siiyay Soomaalidu waxay tiraahdaa mise waxay tahay inta badana ma ilhesho hadday ilheshana kama faa'iideysta fursadda ayada ay heleen mise ma aarsato hadday ka faa'iideysan waayaanna gadaal calaa calmadayso waxaa la isku soo noqonayaa war hasha markay meesha maraysay yaa jacdaha fursaddii aad jac ku dhihi lahayd oo 200 oo sano aan soo marin walaalaha iyaga Oromadana 500 oo sano aan soo marin yaa maanta la haystaa Oromo iyo Soomaali waa walaal inay walaal yihiin taariikhda qoraysa waanu ku dhaaran karnaa oo Ilaahay baa nagu ogaa waan wada dhalanay oo dad bay nagu xigaan iyagii cafarta inta waxa weylisa waxaan isku haysanaa anagii Oromo iyo Soomaali waa hal mid kaliya Soomaali baa Oromo dhashay iyo Oromo Soomaali dhashay kaliya la isku haystaa 700 oo sanana waa madaxana laga taagnaa Soomaalida iyada 100 iyo xogaa sano kaliya laga taagnaa iyaga 600 sano laga taagnaa dibka la soo mariyay Ilaahay baa sheey kara kan adiga lagu soo mariyay kan asaga iyaga la soo mariyay baa ka badan in ay dhig qaaday oo dhalashada og yihiin oo ay ku talaabo qaadeen waxa ku daliil ah sanad kali ayuu nin Oromo xukunka hayaa isbedelkan ayna wada aragtaa walaalaha iyaga hadda meesha loo imaaday annaga la joognay maalinkay imaadeen iyo maanta dhaxdoodan isku meel seexanaynay Ilaahay baa sheey kara qiirada iyo farxadda ka muuqata wax weligeed aan soo marin baa maanta haynaa bay kuleeyeen mudane faarax macallin ayaa ka waramay dhibaatooyin kala duwan oo labadan shacab soo maray iyo duruufo adag inay kala geyn weyday isla mar ahaantaana halganadii kala duwan ay u soo galeen inay xorriyad ku noolaadaan ay ahayd mid sax ah oo xaq u dirira loona baahan yahay inay sii xoojiyaan wada jirka isjacaylka iyo wax wada qabsiga labadan shacab ee Soomaalida iyo Oromadu inta 100 sano madax lagaaga fadhin lahaa oo aad ahaan leed qof la adoonsanayo hal maalin adiga oo qotonto oo dagaalamayso boqor inaad dhimato ayaa ka fadli roon wada garteen Soomaa one day oo aad king tahay baa ka fadli roon 100 sano madax lagaaga fadhiya maxaa waa lagu duleen gabadhaada hortaada lagu kufsan xaaskaada wixii la doono lagu sameeyni meeshaan ognahay baa lagu geeyni bilow aadamnimada intii laga tirtira ayaa waxa laga dhigayaa xoolaha wax ka liita laga dhigayaa wada garteen Soomaa meena ku noqonaan diyaar u nahay mid diyadeed dadka nagu sameeyana meel fog ma joogaan way dhow yihiin way ku fiirsanayaan waliba Soomaali wadan baa wada leedihiin wadan baad ku wada nooshihiin wadankaad ku wada nooshiin goboladana way degan yihiin arintii inay soo celiyaan way rabaan inay Oromiya Soomaali arintan intay hanato waxooda meel marsadaan iyo inay intay ka dabaqdo oo sida hadda inii sheegayo calaacal hadda u dambeeyo ay ka faramoojistaan intaan bay sugayaan ma ogoshii laga faramoojisto موقشي اللي يفرم روجستو waxa weeyaan annaga ma oranayna ninha argoostana ma jirto sidii wadanka loo soo wadi bariga hore si ka wanaagsan baa loo wadi laakiin meeshii lagu ma noqon doono mar dambe taa ku talagala waxayuna halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyay gudoomiyaha gobolka Jarar mudane Maxamed Maxamuud Sugulle iyo maayarka maamulka magaalada Dhagaxbuur mudane Maxamed Xasan Axmed iyagoona sheegay inay ku faraxsan yihiin socdaalkan ay ku yimaadeen mas'uuliyiinta ugu sarreysa deegaanka Oromiya iyo shacabka Oromadu iyagoona sheegay inay yihiin laba shacab oo walaalo ah isla mar ahaantaana ballan qaaday inay si adkeynayaan wada jirka walaaltinimada labadan shacab waxaana intaasi kadib labada madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo madaxweynaha deegaanka Oromiya mudane Shimalas Abdi ay soo wada jir u sameeyeen dirbeeris gabagabadina kooxaha fanka iyo dhaqanka ee labada deegaan ayaa halkaasi heeso kala duwan ku soo bandhigay
Chica,